maamulka gobolka Togdheer gudida nabadgelyada ee gobolka odayada iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayaa si wada jira u soo afjaray shaqaaqa yaro laba beelood oo walaala ku dhexmartay deegaanada Baligedi iyo Warta Xooga oo ka tirsan gobolka Togdheer ciidamada ammaanka ee gobolka Togdheer ayaa si weyn uga shaqeeyay adkeynta iyo ilaalinta ammaanka gobolka Togdheer qaar kamid ah cuqaasha iyo duqeytida labada dhinac ayaa lagu dhaariyay goobta si ay uga shaqeeyaan ammaanka wada jirka wada noolaashaha dadka isku noosha ah ee wada deegaanadan ma wallahi ba ma billahi ba ma tallahi ba inaan nabadgelyada deegaankan ilaalinaysaan ma wallahi ba wallahi inaan nabadgelyada ma billahi ba waa billahi waxa halkaasi laga akhriyay qodobo laga soo saaray daminta shaqaaqadan si loo sugo ammaanka iyo nabadgelyada afar qodobka koowaad in nabadgelyada wax walba laga horeysiyo nabadgelyada la xiro waa koow qodobka labaad in nabadgelyada loo dhaariyay odayaal 20 oo 10 uu yahay reer yahay yana way dhacday qodobka saddexaad in tuulooyinka iyo degmooyinkan degmadeena labada reer wada degaan inay isdhex maraan ayaa lagu heshiiyay qodobadiina waa noo qoran yihiin wayna saxeexeen wayna ku qanceen iyo in deegaanada miyiga ee roobkan hadda daay aan la isu guurguurin in walba halkuu deganaa dhinac kastaba ha ahaatee inuu iska deganaado maadaama abaar iyo dhibaato toona aanay jirin maadaama waxoogaa maartay ay ka yara jirto biyo macaan iyana inta soo xidhmay ilaahiidankii way soo dhamaan doontaa inay iyaduna dadkaas halkooda iska kala deganaadaan wasiiru dawlihii hore ee wasaaradda duulistii hawada Somaliland Axmed Cali Bayna iyo cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayaa ka waramay muhiimadda nabaddu u leedahay dadka deegaankan iyo sida wanaagsan ee gurmadka degdegsiinada leh loogu soo fidiyay iskaashi ka dhacay waxa halkan ka dhashay nabadgelyo waxaan halkan Somaliland uga direynaa baaqa ah inay maanta halkan ka xidhantay nabadgelyo aamin leh oo dhaarteedii wadata oo waayeelkii ay iyo guurtidii labada dhinac isugu yimaadeen oo ay nabadi ku xidhantay oo ay sidaa kaga wada shaqaynayaan deegaankan saraareed ee gobolka Togdheer ka tirsan ee labada beelood wada degaan ayaanu Somaliland u sheegaynaa nabadgelyadaasi inay xidhantay baan u sheegaynaa afkarad wanaagsan ayaa ka dhacay taasoo ah in deegaamada nabadooda la ilaaliyo dib ku odayaalan loo dhaariyo la isdhex maro dib ku qodobada ay soo jeediyeen guddiga dhexaadku aad iyo aad baan dhinacayga u soo dhaweynaynaa waanaanu ilaalinaynaa waanaanu ku hawlgalaynaa annagu anoo ku hadlaya dhinaca alla magan maxamed kagalana wakiila oo dhaarta ay beeluhu dawladuna goobjooga ka tahay ee u timi beeluhuna ay hadruxmay noo soo ogolaadeen aad iyo aad baanu u qaadanay sidaa weeye afartaa qodob baanu qaadanay waxa la isu dhaariyay 10 oday iyo 10 oday waxaan markaati ka nahay in nabad ka dhacday ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu xoojiyo nabadgelyada halka waxa ka dhacay shaqaaqa yar baa ka dhacday shaqaaqadii yareed waa shaqaaqada la soo dhameeyay waxaan halkan uga mahad celinaa guddiga nabadgelyada gobolka Togdheer runtii waxaan u nimid laba beelood oo aad iyo aad u qiimo leh iyaga gacanta ku sii qabtay annaguna waanu sii xoojinay ilaahay uu naga aqbalo oo dhibaatada halka ka dhacday wax dambe aanay dhicin annaguna waanu ilaahay arinta aanu nimi ilaahay sidaa noogu aqbalo taliyayaasha qaybta booliska ee gobolka Togdheer iyo asluubta ayaa amaro culculus duldhigay dadweynaha gobolka Togdheer iyo cid kasta oo lagu arko qori iyo is urur dadba waxaan u sheegaynaa inanka yar ka qoriga u soo dhiibay waa ogaan doonaa Brito waxaan ogaan doonaa ka qoriga sitana waa ogaan doonaa waana ognahay haddana waxaan ognahay oo noo rajisan garaysan oo diiwaanka noogu jira kii rasaas riday waanu naqaanaa waanu ognahay talaabana waanu ka qaadi doonaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay deegaanka aynu joogno ama deegaanada gobolka Togdheer oo dhan ma ogolin cid urursan oo qori sidata una dul qaadan mayno insha Allah sida qodobada u gaadheen way idinku mahad celinaynaa annana way idinku siboornay way idin la qaadanay aad iyo aadna waa mahadsantihiin maantana waxa loo baahan yahay war nabadgelyadu wax lagu ciyaaro ma kusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer ahna barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo ayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay nabadeynta uga mahadnaqay sida wanaagsan ee soo afjareen khilaafkan waxaan
idinla qaadanay go'aamada aad qaadateen ee wanaagsan ee amniga lagu xoojinayo annaguna ka dawlad ahaan waanu idinla qaadanay idinkana insha Allah tacaala saas ayaad ku shaqaynaysaan waana idinkula shaqaynaynaa odayaasha la dhaariyayna awal bada iyagu waxgaradkii iyo guurtidii deegaanka ayay ahaayeen ciddii iyadu la timaada oo fal amni darro la timaado iyagoo isku duuban ayay maxay hayteen soo gudbinayaan dawladda u soo gudbinayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin Absaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco